wali waxaad naga daawanaysaan TV-ga Somali Cable markana waxaad ku soo dhawaataan wararka Britain iyo caalamka waxa inoo soo jeedinaya wariyaheena Salim Salaad Doore. golaha baarlamaanka ee wadankani Britain ayaa waxa ay markii saddexaad si toos ah ay kaga soo horjeesteen qorshihii ra'iisul wasaaradda wadankani Britain ee habka ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradan Yurub maalintii shalay 2:00 duhurnimo ee waqtiga wadankani Britain oo baarlamaanka wadankani ay u codeen ay sameeyeen ayaa 344 waxa helay qolooyinkii ka soo horjeeday ra'iisul wasaaradda wadankani Britain halka ay Theresa May iyo qolooyinkii markaas raacsana ay heleen 286 cod. baarlamaanka ayaa waxaad mooday inay si aad ay kaga dhex muuqdeen qolooyinka taageersanaa xisbiga Labourka oo markaasi iyagu helay 234 cod oo markaasi ka socday xisbiga Labourka 34 cod oo markaasi ay ka heleen Scottishka 16 independent iyo 10 markaasi ka socday xisbiga Irishka ee lagu magacaabo DUP. codeynta kadib ayaa ra'iisul wasaaradda wadankani Britain waxa ay sheegtay in xaaladda wadanka haatan uu ku jiro uu yahay mid aad u adag isla markaasna ishaaca ka qaaday in wadankani Britain ay ka bixi doonaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub 12 bisha Abriil ee sanadkani 2019. laakiin su'aasha haatan taagan ayaa waxa ay tahay 12 maalmood ee foodan ugu soo haya ee ka dhiman xilliga markaasi la qorsheeyay in ay wadankani Britain ay ka baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. maxaa la gudboon ra'iisul wasaaradda iyo golaha baarlamaanka ee wadankani Britain? golaha baarlamaanka ayaa ugu horeyntii waxa ay dib iskugu soo laaban doonaan 1 bisha Abriil iyagoo markaasi falanqeyn doona habkee markaasi looga bixi kara oo kale ururka midoobay ee qaaradda Yurub haddii ay markaasi ay ku heshiiyaan qorshaha ay markaasi mar kale ay soo bandhigi doonto ra'iisul wasaaradda wadankani Britain oo haatan u qorsheysnayn ayaa waxaa dhici kara in ay ururka midoobay qaaradda Yurub ay u gudbiyaan isla markaasina go'aanka ugu dambeeya laga sugi doono madaxda sare ee ururka midoobay ee qaaradda Yurub. codeyntii dhacday maalintii shalay ayaa durbadiba ururka midoobay ee qaaradda Yurub waxa ay go'aan ay ku gaareen in shir degdeg ah iskugu yimaadaan 10 bisha Abriil waa 2 maalmood ka hor xilliga wadankani Britain la doonayo inay ka baxdo ururka midoobay ee qaaradda Yurub. magaalada London ayaa waxa ka dhacaya mudaharaadyo ay markaasi ay soo diyaariyeen qolooyinka doonaya in wadankani Britain gabi ahaan ay iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen in ay adkeeyeen amniga magaalada London qaybo badan oo ah gudaha magaalada isla markaasina ay qabteen dhalinyaro dhibaatooyin markaasi doonayay in ay goobahaasi ay ka geystaan. arrimahan iyo sida markaasi mar waliba isku bedelaan waxaan isku dayi doonaa inaan idinkugu soo gudbino wararka Britain ee telefishinka Somali Cable. markii ugu horeysay ayaa xabsi weyn oo ku yaala wadankani Ingiriiska maxaabiista waxaa la siiyay xuriyad ay markaasi qolka iskaga furi karaan ayna fadhiisan karaan goob loogu talagalay in ay maxaabiista ay fadhiistaan. xabsigan oo loo dhisay casriga ugu dambeeyay ayaa maxaabiistu markii ugu horeysay waxa ay xor u yihiin in ay ku dhex socdaan goobta loogu talagalay xabsigaasi. arrintan ayaa waxaad moodaa in ay tahay arrin ku cusub caalamka. inta badan maxaabiista looma ogola inay qolalkooda ay ka soo baxaan ilaa mooye in ay xabsiga qolooyinka waardiyeeya ee qolalka ay ka furaan. laakiinse arrintan ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey qolooyinka inta badan u dooda xuquuqda qofka bini'aadanka oo sheegay in arrintani ay wax weyn ay ka bedelayso nolosha dadka xabsiyada ku jira ee gebi ahaan wadankan Ingiriiska.
muddo 24 saacadood gudahooda ayaa qofkii labaad waxaa lagu dilay magaalada London. ciidamada booliska ee magaalada London ayaa waxay xaqiijiyeen saacadu marka ay ahayd 2:40 daqiiqo ee galabnimo waqtiga wadankan Ingiriiska nin 40 jir ah lagu dilay stationka tareenada ee lagu magacaabo Clapton Common. ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ninkani 40 jirka ah goobta marka ay soo gaareen uu aad u dhig baxay oona isla goobtaasi ay ku geeriyooday. habeenka horeysa ay ahayd kadib markii 20 jir uu ku geeriyooday magaalada London isagana markaasi midiyo lala dhacay dhaawicisana uu u geeriyooday. wadankan Ingiriiska siiba magaalada London ayaad waxaad moodaa in muddooyinkii dambe ay ku sii kordhayaan dilalka ay geysanayaan dhalinyarada da'yarka ee ku nool wadankani. ninka ugu da'da weyn ee wadankan Ingiriiska ayaa maalintii shalay dhalashadiisu ay ahayd isla markaasina uu gaaray 111 sano. ninkani oo lagu magacaabo Bob Wayton ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Hull sanadka marka uu ahaa 1908 bisha Maarso. ninkani oo markaasi waraysi lala yeeshay ayaa waxa uu sheegay in muddo uu soo noolaa isla markaasina waxyaabaha ugu badan ee noloshiisa wax ka bedelay ay ka mid ahayd inuu ahaa nin aad u degan isla markaasina walwalka inta badan iska ilaaliya. waxa uuna sheegay inta badan xilliyada shaqada kadib in uu nasan jiray isla markaasina raashinka ugu badan uu cuno uu yahay boorashka. dowladda wadankan Ingiriiska ayaa waxay xaqiijiyeen in lacag gaaraysa 5.7 bilyan oo poundka lacagta wadankan Britain ay hub ay kaga iibiyeen xulufada ciidamada wadanka Sacuudiga ee haatan dagaalka uu markaas uu ka dhex oo dagaalka haatan ka wada wadanka Yemen. ciidamadan xulufada ayaa lacagta waxa ay markaas ay ku iibsadeen ay u kala dhiibeen sida tan. wadanka Sacuudiga ayaa waxa uu dhiibay 47 milyan oo poundka lacagta wadankan Britain halka wadanka isku taga Imaaraadka Carabta uu dhiibay 600 oo milyan, Qatar 143 milyan, Masar 120 milyan, wadanka Bahrain 70 milyan, wadanka Jordan 43 milyan, Kuwait 36 milyan, wadanka Morocco 6 milyan iyo halka wadanka Senegal ay dhiibeen 300 oo kun oo poundka lacagta wadankan Britain. qolooyinka ka soo horjeeda dagaalka haatan ka socda wadanka Yemen ayaa waxa ay ku eedeeyeen wadanka Sacuudiga iyo xulufadiisa in ay markaasi bulshada wadanka Yemen ay gaarsiiyeen nolosha qofka bini'aadanka heerka markaas ugu xun. haatan waa xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo laacibiinta dhalashadoodu ay tahay wadankan Ingiriiska. waxa uu sheegay in uu qoondeeyay ugu yaraan 3 ilaa 4 ciyaaryahan oo u dhalatay wadankan Ingiriiska in uu kooxda uu ku soo kordhin doono. maalinta Birita ayaa waxa la filayaa inay ciyaaro aad u xiiso badan ay ka dhacaan wadankan Ingiriiska oo ah ciyaaraha Premiershipka. kooxda Fulham ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Manchester City. Brighton ayaa waxay ku baxayaan kooxda Southampton. Burnley ayaa waxay ugu aadan yihiin kooxda Wolves halka Crystal Palace ay ku aadan yihiin kooxda Huddersfield. kooxda Leicester ayaa waxa ay ku baxayaan kooxda Bournemouth halka kooxda Manchester United ay ku aadan yihiin kooxda Watford. ciyaarta ugu dambaysa ayaa waxa ay tahay ciyaarta dhexmari doonta kooxda West Ham United oo ku aadan kooxda Everton. ciyaarahaas iyo sida ay ku soo gabagaboobaan maalinta Isniinta hadduu eebba uraali uu ka noqdo ayaad waxa aad ku daawan doontaan barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. wararkani Great Britain iyo xubinteena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga waxaa fududeeyay shirkadda Salim Travel and Tourism oo haatan idin diyaarisay baggage ku saabsan magaalada Dalaman iyo Antalya ee wadanka Turkiga, sidoo kale fiisooyinka bisha barakeysan ee Ramadan. We are Salim Travel and Tourism. We are just one call away. You pack, we plan. Call us today at 0208 077 4718. Salim Travel and Tourism.